kulanti haboon daawadayaal idilkiinba soo dhawaada saaxiibayaal halka kan haddii eeba uu raalli ka noqdo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa baro qaababka aad lacagta ku soo gasha wax uga dhigan karto qarashkaagana si caqli ku dhisan u xakamayn karto haddii aad hadda uun shaqo bilowday ama aad jeceshahay inaad keed ka samaysato lacagta ku soo gasha si aad noloshaada mustaqbalka ugu isticmaasho ama aad ugu diyaar garowdo qarashada marartii lama filaanka u soo dhaca ama xataa aad doonayso inaad lacagta ku soo gasha ka kaysato qayb aad ugu tala gashay waxbarashada mustaqbalka ubadkaaga waxaad ogaataa in gaarista bartilmaameedkaasi lama huraan ka dhigayo inaad qaab maskax iyo xisaab ku dhisan u isticmaasho dakhliga ku soo gala kow naftaada runta uga sheego xaaladahaaga dhaqaale iska jir in aad si caadifad iyo qiiro ku dheehan tahay u qaadato go'aamada la xiriira qarash bixinta naftaada u sheeg runta duruufahaaga dhaqaale iyo halka uu marayo dakhligaagu iskana jir inaad qarash ku gasho fikir la-aan iyo adigoo aan ka baaraan degin waxa kaa anfacaya ha iska iibsan waxyaabo aan anfac kuu lahayn ama baahidooda aanay markaa taagnayn labo si xirfad leh u adeego inta aanad shayga iibsan ku dadaal inaad meelo kala duwan ka soo baayacdo isweydii inay jiraan waxyaabo ka jaban oo waxa uu shaygani kuu qaban karo kuu qabanayo ama baahida aad u qabto daboolaya daraasee farqiga u dhexeeya labada shay ee aad ka qaaliga ah dooranayso saddex haftada ku dadaal inaad daynsato alaabooyin aad hubto in aad iska bixin karto qarashkooda isla markaana ah wax aad u baahan tahay ama anfac kuu leh oo hafto aad u yar lagaaga qaadayo muddo waxa ay taasi daboolaysaa in qarash aad macno darro ku bixin lahayd aad ku qasbanaato inaad u dhigto daynta haftada lagaaga guro ee ku sugaysa dhanka kalena ku dadaal in shay kasta oo aad naqad ku iibsanayso in si fiican isaga baayacdo afar qarash bixinta iska jir inaad qarashka u bixiso si bilaa fikira ama aan nidaam iyo qorshe ku socon ku dadaal 5 caado oo maalkaaga aad ku ilaalin karto samayso akoon ama sanduuq kayd oo lacagta aad dhigato lacag kasta oo ku soo gasha ha ku degdegin in aad wada isticmaasho markaba tusaale ahaan qiyaas go'aan 25% ku rid akoonka adiga oo og inaad u baahan tahay kadib inta kale marka aad isticmaasho waxaa suuragal ah inaad ka maaranto wixii aad uga baahnayd waxaa dhacda in xiisaha hore uu qofku waxyaabo badan iibsan karo laakiin hadhow marka uu xisaabtamo uu qoomameeyo waxyaabo badan oo uu iibsaday ku dadaal inaad lacagta ku kaysato meel kaa durugsan ama aanad markasta si sahlan u gaari karin tusaale ahaan haddii aad akoon ku leedahay bangiga ha samaysan jeeg ee samayso buug si marka aad lacag u baahataba aad ugu qasbanaato inaad adigu kacdo oo la soo baxdo taasi waxay keenaysaa in marar badan lacag aad isticmaali lahayd aad isaga dayso wahsi ama haleeli waa haddiise aad jeeg leedahay cid kasta ayaad u diran kartaa iska jir deymaha waaweyn ama deymaha mar kaliya lagaa wada rabo ee aan naftaada ogolayn kuna dadaal in aanad qaadan deyn aanad hubin in shayga aad ku qaadanayso baahi weyn kuu hayso si joogto ah u qor una xisaabi dakhliga ku soo gala iyo qarashkaaga waayo marka ay naftu xisaabtanto ee ay aragto in qarashka isticmaashi badan yahay waxa u fududaanaya in cadaadis lagu saari karo dhimista qarashkaas dakhliga ku soo gala ha noqdo mid inta aanu imaanba aad sii og tahay meelaha aad u isticmaalayso waa inaad sii xisaabisaa inta bangiga aad dhiganayso iyo inta qarashka ah una dadaal wixii intaa ka badan ee qarash ah inaad dhinto ama badh dayn hafto ah ku qaadato waad ku mahadsantihiin daawashadeenna waxaa diyaariyey Kamaal Axmed Cali anaguna waanu idiin soo gudbinay idinkuna la wadaaga saaxiibada kale